dowladda ila aqoonsatay Israa'iil calaamadeedii bar ka mid ah ay heleen meeshay doonaan bahaw maraan waxaan doonaynaa inay isugu yimaadaan berritooda 9 subaxnimo iyo alamisa inay caawa kala nafis tagaan kala nasasho tagaan gaar ahaan dhallinyarada reer Burco haynaga xumaynina subcadda iyo magaca wanaagsan aynu Soomaaliland dheernahay oo ah waa halkii lagaga dhawaaqay jamhuuriyadda Soomaaliland Burco waxa ka dhashay halyeeyadii ku suntanaa qarannimada iyo dowladnimada aynu haysano cadawyaa inaan lahayn baynu yeelannay saaxiibaa inaan lahayn baynu yeelannay dadaal baana laga rabaa kii hore ka laaban marka bulshada reer Burco waan ogahay waa diiran tihiin waan ogahay dad kale waa ka xamaasad badan tihiin xamaasadaas iyay keenin maalinteena weyn naga fool xumayso waxaan ugu baaqaynaa inay yimaadaan 9 subaxnimo iyo garoonka kubadda cagta si aynu muujino qarannimadeena iyo wixii waajibaada nagaga aadan i'tiraafka ama aqoonsiga aynu ka helnay Israa'iil iyo cid kasta oo aqoonsi ina siinaysa ama aynu ku sii wadayno dadaalkeena aqoonsi raadiska waxa ku saabsan fariintani inaynu bulshada Burco ugu baaqno inay si nabadgelyo u soo baxaan oo si kalsooni leh u soo baxaan oo wixii cadawga iyo wixii liddu ku ah ammaankeena iyo jiritaankeena iyo madaxbannaanideena aynu iska ilaalino Soomaaliland dhammaanteed hambalyo waan leeyahay gaar ahaan Burco anagoo fulinaynaa markii wasiirka arrimaha gudaha berrito waxa la isugu imanayaa garoonka si looga sheekeeyo oo ay taariikhda u gasho oo dhallinyaradiinnana ay idinu ogaataan halgankii dheeraa ee loo soo galay maanta oo xukuumad kastoo timi meel bay wax soo gaadhsiisay halkuu ka soo bilaabmay dalku waa 60kii xorriyaddeenii dooniddii shantii Soomaali